gaashaanbuur ama isbahaysi kii ugu weynaa ee ay dunida casriga ah yeelato. Isbahaysi milgihiisu yahay ilaalinta xuduudaha wadamada ku midoobay. Isbahaysi muujiye waxtarka uu leeyahay iskaashiga aadmigu waa isbahaysiga NATO. Sidee ayuu u shaqeeyaa isbahaysigani? Goorma ayaa la aasaasay? Maxaase laga ilaaliyaa wadamada ku midoobay ururkan? Ku soo dhawow macluumaad ku saabsan isbahaysiga NATO. NATO waa erey laga soo gaabiyey North Atlantic Treaty Organization. Waxaa la aasaasay 1949 sanado yar kadib markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Sababta keentay in la sameeyo isbahaysiga NATO waxa ay ahayd baqdin laga qabay ururkii Sofiyeetka oo markaa Ruushku horkacayay. NATO waxaa lagu saxiixay heshiiska dhismihiisa ururkani dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington sanadii 1949. Wadamadii lagu aasaasay waxa ugu tun weynaa Mareykanka, Canada, Belgium, Denmark, Faransa, Ingiriiska iyo dhowr dal oo reer Yurub ah. Waxa uu ururku ka koobnaa markii la aasaasay ama lagu aasaasay ilaa 12 dal oo ku heshiiyey isbahaysigani, balse wuu kobcayay isbahaysigani wixii intaas ka dambeeyay. 29 wadan oo reer Yurub ah iyo 2 dal oo dhaca waqooyiga Ameerika oo wadartoodu tahay 31 dal ayuu iminka ka kooban yahay midowga. Ujeedka ugu weyn ee laga lahaa ururkani waa ka hortagidda dhib ka yimaada midowgii Sofiyeetka oo markaa ahaa mid meel sare marayay. Dalkii ka mid ah NATO waxa uu xaq u helayaa in si wadajir ah looga difaaco haddii uu dhulkiisa weerar ku soo qaado dal aan ka tirsanayn ururkani. Qodobka 5 ee ururka ayaa sidaan qaba: weerar kasta oo lagu soo qaado dal ka mid ah NATO kana yimaada dal ka baxsan ururka waxa uu la mid yahay duulaan lagu soo wada qaaday dhammaan xubnaha kale ee ururka, waana qasab in la wada difaaca. Si walba waxa su'aal ku gudan tahay ka waran haddii 2 wadan oo NATO ka mid ah ay isqabtaan oo dagaal dhex maro. Turkiga iyo Giriiga waa 2 xubnood oo ka mid ah NATO. Waxay ku sigteen dagaal inuu dhex maro dhawaanahan kadib markii ay isku qabteen ceel gaas ah oo laga helay xuduudda ay labada wadan wadaagaan. NATO si guud ma jiro xeer u gooni ah oo u astaysay arrimahan oo kale, balse waxaa xeerarkeeda ka mid ah in dalalka ka mid ah ururkani ay ilaaliyaan xuduudaha wadamada kale, balse ma jirto cid u kala goysay xuduudaha dalalka. Caalamka oo dhan murankaasi waa mid ka taagan. Isbahaysiga NATO waxa uu kaliya awoodaa dhexdhexaadin labada dhinac haddii ay ururka ka wada tirsan yihiin, balse in uu mid la safto waa arrin lid ku ah xeerarka u degsan ururka. Waxaa dhawaan lagu soo dhaweeyay xubinimada ururka dalka Finland kadib culis ka soo fuulay dagaalkii Ruushku ku qaaday Ukraine. Waxa suurtagal ah in wadamo kale lagu soo kordhiyo ururka. Yaa ka mid noqon kara midowga? Waa su'aal ayada qudheedu isweydiin u baahan. Gaashaanbuuraysigani waa midowga gooni ah wadamada dhaca Yurub iyo Ameerika. Dalalka Afrika ama Aasiya kama mid noqon karaan ururkani. Waxaa jira wadamo reer Yurub ah oo aan ka mid ahayn NATO sida Ruushka oo ah quwad iskeed u taagan. Ruushka oo ah quwad ku hubeysan nukleerka haystana madaxyada ugu badan ee hubkan waxgumaada ayaa aad uga soo horjeeda isfidinta ururka NATO. waxaana jirta cabsi laga qabo isku dhac mara NATO iyo Ruushka. waa hubaal ma noqon doono mid la mahadiyo dagaal dhexmara labada dhinac waa Ruushka iyo NATO.